tobankan cashar waxa aynu ka baran karnaa buugga la yidhaahdo the power of positive thinking oo soomaali ku noqonaya awoodda hafikirka tolmoon amba hafikirka wanaagsan. buuggan waxaa qoray Norman Vincent qoraal la yidhaahdo. haddii aan hore uga socdo tobankiisa qodob amba tobanka cashar aynu ka baran karayno buuggan, qodobka koobaad waxuu noqonayaa aamin naftaada. inaad noqoto qof fikirkiisu wanaagsan yahay, tallaabada ugu horreysa ugu muhiimsan waxa weeyaan inaad adigu aaminto naftaada, awoodaha ilahi subxana watacaala ku siiyey, nimcooyinka ilahi subxana watacaala kugu deeqay, iyo sidoo kale in aad noqoto qof garanaya qiimihiisa. waayo sawirkaad ka haysato naftaadu haddii uu sawir wanaagsan yahay waxaad noqon karaysaa qof horsocon leh. haddii aan sawirkaasi wanaagsanayna waxaad noqonaysaa qof isagu lagu haysaya oo aan meel loo dhaqan. marka wuxuuna leeyahay casharkan koowaad eenu ka baran karna buuggani inaad aaminto naftaadu waa tallaabada ugu muhiimsan, ugu horreysa, uguna qiimaha badan leh ee aad samayso. qodobka labaad waxuu noqonayaa waxaad xoogga saartaa ayuu ku leeyahay waxa wanaagsan. inaad wax wanaagsan xoogga saarto oo aad yacnihii waxa weeyaan noqoto qof mar walba diiradiisu saaran tahay waxa wanaagsan, waxa uu kaa dhigaya qof fikirkiisu wanaagsan yahay. waxaanu kaa dhigaya qof qaadi karaya tallaabooyin wanaagsan oo kaga faa'iidaysan karaya fursadaha hor imaada. haddii aanu diiradaada aanay saarnayn ambaanan ahayn qof arkaya waxa wanaagsan ee nolosha, way kugu adkaan doontaa inaad tallaabooyin wanaagsan qaado, horumarna gaadho. keligeed waxa kugu filan inaad niyad jabto markaad eegto waxaan wanaagsanayn. marka qodobka labaadna wuxuuna leeyahay xoogga saar oo diiradda ha kuu saarnaato waxa wanaagsan. qodobka saddexaad wuxuuna leeyahay u fikir qaab tolmoon, qaab wanaagsan. yacnihii inaad qaab wanaagsan u fikirtaa waxay qayb weyn ka qaadanaysaa inaad hesho su'aalo badan jawaabahooda. waxay kaa dhigaysaa qof degan mar kasta oo wax u taxliiliya hanaan waxa weeyaan deganaan ku jirto. si haddii aanad u fikirin qaab tolmoon oo aad u fikirto qaab waxa weeyaan taban, waxay kaa dhigaysaa inaad adigu xal kasta aad u hesho waxa weeyaan caqabad aad ku istaagto oo aad ka dhigato excuse amba waxa la dhahdo cudurdaarka. marka qodobka saddexaadna waxaynu leeyahay u fikir qaab wanaagsan baa fikirkaaga ha wanaagsanaado si aad u arki karto fursadaha, sidoo kale waxay lin kartaa caqabadahaaga shakhsiga iyo kuwaaga ganacsiba. qodobka afraad waxayna leeyahay waxaad sawrataa ood mar walba maskaxdaada kusoo celcelisaa sawir wanaagsanna ka qaadataa ahdaaftaada doonaysan. tusaale ahdaafta aad doonaysan inaad gaadho markaad sawrato si maalinlaa u sawrato adigoo ku dhex jira, adigoo qabtay wixii, adigoo sameeyey, waxay kaa dhigaysaa qof mar walba u diyaarsan in uu ka shaqeeyo si uu hadafkaa u gaadho dhiirigelin helaya. waayo markuu shaygani kuu sawran yahay waxay naftaadu ay kugu dirqiyaysaa oo ay kuu siinaysaa tamar in aad ka shaqaysa si aad u gaadhid waxa niyaddaada ku jira eed sawranayso. marka inta badan qofku waxa niyaddiisa ku jira waa wuxuu keliya og yahay waxa niyaddiisa ku jira. yacni mar kasta ood wax niyadda ku qabato oo aad sawrato waa waxaad gaari karayso. waayo waxaad keenaysaa markaad shaygii sawrato sideen ku gaari karaya, sideen ku gaari karaya su-aashaas markay timaadana waxay helaysaa dariiqooyin fara badan ood ku gaari karayso shaygaas. qodobka shanaad waxayna leeyahay qaab tallaabo. yacnihii inaad u fikirto si wanaagsan oo keliya ama fikirkaaga wanaagsanaada kuguma fila. waxaad u baahan tahay fikirkaaga wanaagsan inaad tallaabo ku darto. haddii aad tallaabo ku darto waxaad helaysaa natiijo wanaagsan oo cashar baad baranaysaa. marka wuxuuna leeyahay casharkan shanaad qaaditaanka tallaabadu waa shay aad muhiim u ah oo aad ku gaari karaysid fikirkaaga wanaagsan xaqiijintiisa. qodobka lixaad wuxuuna leeyahay ha isdhiibin. isdhiibitaanku waa adiga oo nool haddana dhintay. macnaheedu tahay nolosha way soconaysa adigana waad nooshay. marka haddaad isdhiibto oo aad joojiso inaad shaqayso wax qabsato oo aad horumar gaadho oo aad naftaada wanaajiso, waxay noqonaysaa macnaheedu inaad tahay qof meyda haddana nool. xanuun ka weynina ma jirto in noloshii socotood stiil aad nooshahay, in noloshaadi dhammaanin, in haddana aad quus aad mixiin dhito. marka aad isaga ilaali inaad isdhiibto. waad niyad jabi kartaa, laakiin inaad isdhiibto gacmaha taagataan waxa weeyaan waa waxaan wanaagsan in mustaqbalkaaga, noloshaada iyo niyaddaada iyo caafimaadkaaga. qodobka sideedaad waxayna leeyahay caawi dadka kale. qofku mar kasta oo u caawiyo dadka si wanaagsan oo wax wanaagsan ka caawiyo oo mar kastuu farxad helo. bal waxaad fiirsataa markaad sadaqada bixiso maxaa kaa farxad badan. yacni waxaad arkaysaa nimcada ilahay ku siiyey inaad tahay adigu mar walba gacanta sarraysa oo ay jiraan cid u baahan gacantaadu. ka caawinta dadku waa wax laga helo, farxad laga helo, waa wax laga helo deganaan, waa wax diin ahaanna ilahi subxana watacaala ayna faray inaynu is caawinno. marka qodobkaas sideedaadna waxaanu ka baranaynaa caawinta dadku inay tahay wax nafteenna, caafimaadkeenna, maskaxdeena iyo nolosheennaba u wanaagsan. qodobka sagaalaad waxauna leeyahay waxaw qof ku xamdi naqa nimcooyinka waxaan ilaahay siiyey subxana watacaala. inaad noqoto qof ilaahay ugu xamdi naqa nimcooyinku siiyey waxay kaa dhigaysaa qof degan. laakiin mar walba haddii aanad arkaynin nimcadu ilahay subxana watacaala ku siiyey waxaad doonaysaa wax kale, deetana waxaa geligeedaba aad xooga saaraysaa waxaa kaa maqan, ma arkaysidse inta badanaad haysato. ilaahayna subxana watacaala waa kaynale wa in tacudduu nicmat allahi laa taxsuuha. laakiin haddii nimcooyinka ilaahay idin siiyey aad istirahdaan tiriya ma tirin kartaan. aynu ka baran karayno in waxaynu haysanaa ay ka badan yihiin wax yara naga maqan. tusaale waxa laga yaaba inay lacago keliya aad kaa maqan tahay. waxa laga yaabaa inuu kaa maqan yahay waxa weeyaan inaad yacni guri samaysato, waxaa samaysto. waxa laga yaabaa inuu kaa maqan yahay
inaad noqoto qof tusaalahaan oo kale magac leh laakiin ma arkaysid caafimaadkii ma arkaysid qoyskaagii aad kala ma arkaysid ma arkaysid inaad yacnihii aad yacni nimcooyinka badan ee dad kale ka maqan inaad adigu haysto mar walbana waxaad idhahdaa qof kasta waxbaa ka maqan oo uu tabaya marka inaad ilaahay ugu mahadnaqdo nimcooyinka ku siiyad alxamdulilah tirahdaa waxay ka dhigaysaa laftigeeda in nolosha ku wanaagsanaato noqoto qof waxa weeyaan degan ilahayna waa kii subxana wataala qur'aankiisa ku lahaa lain shakartum laaziidannakum walain kafartum faina cadaabi lashadiid ayaddaasna waxay noo tilmaamaysaa inuu ilaahayna leeyahay haddii aad alxamdi naqdaan yacnihii nimcooyinka idin siiyey waan idiin siyaadinaya wanaagga iyo nimcooyinka haddii aad ka gaalowdaan oo macnaheedu tahay haddii aad iska indhatirtaan oo dafirtaana ilahay inuu inuu sheegayo in cadaabkiisa kulli yahay marka qofku inuu ilahay u mahadnaqaa waa qeyb ka mid a cibaadaadka qodobka ugu dambeeya tobnaad wuxuuna leeyahay nolow maanta nolow maanta macnaheedu maxay tahay inaad maanta noolaato macnaheedu waxa weeyaan in aanad ka welwelin berri toole ama aanad ka welwelin shalay toole waayo nolosha gebigeedu waa saddex xaaladood xaaladda koowaad waa shalay xaaladda labaad waa maanta xaaladda saddexaadna waa berri toole shalay waad ka timid waxba kama bedeli kartid inaad cashar ka barato mooyaane maanta ayaad wax bedeli karaysaa waxna qaban karaysaa berri toolena weli maad gaarin oo maaha waxaad gaadhayba marka shaqo kaagama taalla berri toole ee maantadaada haddaad wanaagsan natiijooyinka ka dhasha ayaad berri toole noqon doona waxa quruxda badan laanba waxaan wanaagsanayn kuu soo baxa marka natiijada berri toole waa ficilkaad maanta qabato natiijada maantana waa waxaad shalay toole soo samaysa marka presentkeenna noolaato ama aad noolaato xaaladdan maanta waxay macno u samaynaysaa isbeddelkaaga shakhsiyeed waxay macno u samaynaysaa niyad wanaagaaga waxay macno u samaynaysaa inaad isbeddel samayn karaysid si kasta ood fursado usoo lumisay si kasta oonad u dareemin isbeddel si kasta ood usoo niyad jabtay haddana maanta haddii aad u kacdo isbeddel wanaagsan baad samayn karaysaa marka tobankan cashar waa toban cashar aad muhiim u ah aynu ka baran karayno buugga la yidhaahdo oo aynu ka baran karayno buugga la yidhaahdo the power of positive thinking soomaalina ku noqonaya awoodda fikirka toolmoon ama awoodda ha fikirka toolmoon waxaanu nagu dhiirigelinayaa bogani dhammaantii inay noqono dadka fikirkoodu wanaagsan yahay uu yahay mid waxa weeyaan filashadiisu ayaad u sarrayso wanaagsan oo ficil la ku dara filasho keliya ta lagagama bahna lakin ficil baa lagaaga bahay marka labada shaynu ka baranaa muxuu yahay si guud in ha fikirka wanaagsan iyo ficilku markay isla kulmaan ay dhalin karayaan natiijooyin cajiiba taas aynu aad uga baranayna aad baad mahadsantii